halkani waa Elias Online. daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa barnaamij ku aadan xilligii maxkamada Islaamiga ee ay soo maray Soomaaliya 2006 ilaa 2007. barnaamijkan waxa aan diiradda ku saari doonaa qaababkii iyo systemkii ay ku soo jabeen maxaakiimtii Islaamiga. 19 bishii 12 2006 waxaa bilowday dagaalkii Daynuna iyo Iidaale waxa uuna dagaalkaasi socday muddo 9 maalmood ah waxaana markii dambe lagu soo jabiyay maxaakiimtii Islaamiga oo markii dambe isaga baxay magaalada Muqdisho kadib markii ay soo weerareen ciidamada Ethiopia oo ay la socdeen ciidamada dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya. waxa uuna Sheekh Shariif sheegay xilligaasi asagoo ahaa gudoomiyihii maxkamadaha Islaamiga golaha fulinta habeenkii uu ka baxay magaalada Muqdisho uu dagaalka saacan wixii ka dambeeyay amba hadda wixii ka dambeeyay uu noqon doono ku dhufo ka dhaqaaq. 24 bishii 12 2006 waxaa la duqeeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kadib markii ay ciidamada Ethiopia gantaalo ku dhufteen garoonka magaalada Muqdisho oo maxaakiimta u isticmaali jireen wixii sahay ay u baahan yihiin iyo safaradoodii dibadda. taasina waxa ay walwal iyo jab ku abuurtay in maxaakiimtii ay guud ahaanba isaga baxaan magaalada Muqdisho. 25 bishii 12 2006 waxa ayana la duqeeyay magaalada Beledweyne oo ay ka dagaalami jireen ciidamada maxaakiimta Islaamiga ah. duqeyntaasi waxa ay keentay in ciidamadii ay kala firxadaan magaalada Beledweyne oo ay soo galeen ciidamada Ethiopia waxaana ciidamadaasi maxaakiimta markii dambe isugu soo urureen agagaarka magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. 27 bishii 12 2006 waxa iyana safka hore ee dagaalka soo baneeyay ciidamadii maxaakiimta Islaamiga ee ka dagaalamayay aagaga Daynuna iyo Jowhar waxaana ciidamadaasi ay u soo urursadeen magaalada Muqdisho ee xarun u ahayd maxaakiimtii Islaamiga. kadib markii ay soo jabeen ciidamadii maxaakiimta ayaa waxa ay sheekadu noqotay ka darayo dibadda. 28 bishii 12 2006 waxa magaalada Muqdisho ka baxay maxaakiimtii Islaamiga. maxaakiimtii Islaamiga oo horkacay Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa ayna maalinkaasi magaalada soo galay ciidamo Ethiopian ah. isla 28 bishii 12 waxa ciidamada Ethiopia ay soo gaareen magaalada Muqdisho iyo Afgooye waxaana xilligaasi la socday ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi. waxa uuna magaalada Afgooye kulan kula yeeshay odayaal waxgarad siyaasiyiin ku sugnaa gobolka Banaadir waxa uuna kala hadlay dhinaca nabadgelyada waxa uuna u sheegay ra'iisul wasaaruhu in laga adkaaday waxa uu ugu yeeray argagixisada. kowdii bishii 2007 waxa degmada Afgooye soo gaaray madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya xilligaasi Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo isna kulan la yeeshay siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Banaadir oo uu kala hadlay sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada gobolka Banaadir isagoona sheegay in ay u soo guuri doonto dawladda federaalka ee Soomaaliya gudaha magaalada Muqdisho. kowdii bishii 2007 waxaa la qabsaday magaalada Kismaayo waxaana xilligaasi ka baxay maxaakiimtii Islaamiga oo hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo mas'uuliyiin kale. hase yeeshee maalinkaasi subaxnimadii ayaa Sheekh Shariif waxa uu salaadii Ciidul Adha kula dukaday dadweyne aad u fara badan waxa uuna ku wargeliyay in la iska difaaco cadawga Ethiopia sida uu hadalka u dhigay. waxa ay taasi keentay ama ay soo dadejisay in ay ciidankii Ethiopia aynan ka harin maxaakiimtii Islaamiga ayagoona kaga daba tagay magaalada Kismaayo. ugu dambeyntiina Sheekh Shariif iyo ciidamadiisii ayaa hoodka ayagoo ku jiraan amba ay ku gabanayaan bay ku lumaalaysanay xilligaasi jasiiradii ku dhii Koyama ay Mareykanka duqeen cirka ah diyaaradaha Mareykanka ay hawada ku duqeeyeen.
ugu dambeyntiina sheekh shariif ayaa dowladda Kenya ay gacanta ku dhigtay waxa uuna la kulmay kaalihii wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee qaaradda Afrika u qaabilsan Jendaya Fraser. sheekh shariif ayaa xilligaasi waxaa magaalada Nairobi la geeyay safaaraddii Mareykanka ku taalay magaalada Nairobi. xilliga uu wareysi bixiyay aan ilaa aan wareysiyadaasi waxa ay ku saleysnaayeen aan saxaafadda loo soo bandhigin. ugu dambeyntii sheekh shariif ayaa caga dhigtay magaalada Asmara xilligaasi oo ay la bixeen isbahaysigii la dagaalanka ama dib u xoreynta Soomaaliya ilaa uu ka noqday madaxweynaha dowladda ku meelgaarka Soomaaliya xilligan lagu doortay magaalada Djibouti ee dalkaasi Djibouti. isbahaysigii xilliga meesha lagu aasaasay ayaa waxa ay u kala jabeen laba garbood ayagoona xilliga Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan ay ka soo horjeesteen fikirkii Sheekh Shariif. Sheekh Shariifna waxa uu noqday madaxweynihii dowladda federaalka ee ku meelgaarka ee Soomaaliya. xilligaasi wixii ka dambeeyay Xasan Daahir Aweys ayaa u soo biyashubtay inuu ku biiro ururka Al-Shabaab oo ayaga dagaal ba'an kala soo horjeestay xukuumaddii uu hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed. waxa ay taasi keentay in magaalada Muqdisho kala bar iyo in ka badanba in ay gacanta ku dhigaan ururka Al-Shabaab iyo guud ahaan koonfurta Soomaaliya. markii Sheekh Shariif uu dowladdiisii ay timaaday magaalada Muqdisho ayaa waxa African Union loo soo diray ciidamadii ka socday midowga Afrika ay dagaal aad u ba'an kula galeen ururkii Al-Shabaab. xilligaana dagaalkaasi waxa uu taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Dhagabadan iyo ra'iisul wasaaraha xukuumaddaasi uu ka ahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iminkadan Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. ugu dambeyntii Afrikaantii markii ay soo gaareen magaalada Muqdisho waxaa Soomaaliya ka bilaabmay dhaqdhaqaaqyo kala duwan. ururka Al-Shabaab marka laga tagana waxaa jirtay urur kale sida Xisbul Islaam ee uu madaxa ka ahaa Xasan Daahir Aweys. Al-Shabaab ayaa ku qasbay Xisbul Islaam in ay ku biiraan ama ay hubka ku soo wareejiyaan ururka Al-Shabaab si ay uga mid noqdaan ururka Al-Shabaab. sababtoo ah Al-Shabaab xilligaa ma aaminsaneen ilaa aanana ma aaminsan in wax ayaga ka baxsan ama urur diimeed kale Soomaaliya in uu ka dhaqan galo ama uu ka hirgalo. dagaaladii ka dhacay Soomaaliya xilligii maxaakiimta ayaa waxaa ku nafwaayay dad aad u fara badan. eriyada Daynunay meelaha ay dagaaladaasi dadka ku baabeen waxaa ka mid ah Daynunay iyo Iidaale, Bandiiradley oo Gaalkacyo iyo buurta Janta Kundisha loo yaqaan ee ku taala magaalada Beledweyne. ugu dambeyntii Sheekh Shariif ayaa noqday madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya. markii magaalada Muqdisho 6 bilood uu ra'iisul wasaare ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa ay taasi keentay in ugu dambeyn lagu qasbo inuu xilka iska wareejiyo uu dhiibo. Sheekh Shariif ayaa ugu dambeyntii ra'iisul wasaare u magacaabay dowladdiisii markii uu bedelay ra'iisul wasaarihii xilka iskaga tagay oo qori ardiis kaga baxay magaalada Muqdisho Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. waxaana ra'iisul wasaare uu ka dhigay Cabdiweli Cali Maxamed Gaas. ugu dambeyntii Soomaaliya ayaa soo gashay doorasho 2012 ee lagu doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligaa noqday madaxweynihii ku meelgaarnimada ka baxday dowladdii ku meelgaarka ahayd oo bedeshay dowlad rasmi ah ay Soomaaliya yeelato. 4 sanadood kadib 2017 ayaa doorasho kale ka dhacday Soomaaliya. waxaa xilka madaxtinimada Soomaaliya loogu doortay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.
haddaba daawadayaal ururka al-shabaab waxa ay weli ka dagaalamayaan qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya inkastoo awoodoodii aynan ahayn sidii ay waa ahaan jirtay laakiin waxa ay weli awood u leeyihiin in ay fuliyaan howlgallo qaraxyo ismiidaamin iyo dhagar kale ay ummadda Soomaaliyeed dhiigooda ku baneysteen halkan ayaan kusoo gogweynaa tan ismaqal dambe xiiso leh sida iyo nabadgelyo